بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين كلمدii labaatanaad waxaan cinwaan ugu dhignay أهمية العشر الأواخر من رمضان mudnaanta ay leedahay tobankan maalmood oo ramadaan ugu dambeyso tobankaas waxaa weeyaan nin kastoo muslima qiimaha ay leedahay wuu ogyahay waxaa un loo sheegayaa waxaa weeyaan isxasuusin waa mooye cid kastoo saa'ime tobanka dambe qiimaha ay leedahay wuu ogyahay marka wax kastoo laysu sheego wax laga jaahil yahay ma ah waa isxasuusin fadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin marka tobankan dambo waxaa la yidhaahdo cashar alawaakhir min ramadaan hiya afdalu ayaami sana sanada dhan ayaamteeda ayadaa ugu fiican dadna waxay yidhaahdeen afdalu ayaami sana waxaa weeye alcashru alawal min dilxija tobanka maalmood oo bisha xajka ugu horeysa waay marka waxaa layskugu soo dhoweeyey haddii la yidhaahdo habeenaha haddii la yidhahdo habeenaka ramadaana ka fadli badan afdalu layaali calaa wajhi liطlaaq waa layaali alcashri alawaakhir min ramadaan habeenaka dambo oo ramadaanka tobanka dambe habeenakooda wax lamid e ma jiraan haddii habeen la yidhaahdo liannahu leylat lqadri baa ku jirto oo khayru min alfi shahri ilaahi uu yiri baynamaa maalin haddii la yidhaahdo cashru dilxija bisha xajka tobankeeda maalmood maalmaha habeenka laga reebo ayadana ayaam sana ayadaa uga fiican liannahu yowma carafa ku jirto marka isku soo duubduub oo waxa weeyaan waa habeenanka ugu qiimo badan intayba sanada dhan ku jirto marka taa waxay keenaysaa in mudnaan gooni ah la siiyo waxaa isweydiin leh cashar alawaakhir goomay bilaabataa dadkii haddiirtaan taariikhdeena waad aragtay midii islaamka waa laga tegay midii miilaadkii ayaa la isticmaalaa maxaan ku yidhaahdaa ama bisha gaalada ay dadka yidhaahdaan liannahu miilaad alciisa shaqa kuma laha sida la ogyahay marka bilahaas unbaa la yaqaanaa bili islaamka haddaa tiraa maanta soo tiri dadka fara ku tiris waa yaqaano oo intay ka bilaabataa muxaram iyay ka bilaabataa maxaa ku xiga rabiic alawal rabiic athani jumaad alula jumaad athani dadka haddii tiraa saas u tiriya ma yaqaanaan laakiin bilahan kale maasha allah waa la yaqaanaa nooca waxaa weyaan tabaciya ninka maqluubka oo laga qaalibsan yahay laga awood badan yahay ninka kale unba wixiisa ku raaca haddana waxaa weeyaan maalmihii iyo habeenikii aanan kala garanayn maanta oo kale waxaan joognaa arbaca mathalan habeenkii arbacadahay ma noo dhiman yahay mase waa soo dhaafay dad badana isaga dhexyaacsan tahay taasna waxay keenaysaa habeenaka isku mid maa habeena waxaa jira oo cibaado gooni ah mathalan habeenka jumcada oo kale nabiga gooni in loogu saliya la rabaa xajka haddii la gaaro habeenka musdalifa la baryayo ma maalinteeda ay ka horeysaa mase ma ka dambeysaa dadkii waa inay gartaan alkhulaasa waxaa weeyaan alleylatu tasbiqu nahaar habeenka yaa ka horeyso maalinta haddaan maanta arbaca joogno habeenkii arbacada xalay ahayd waa lasoo dhaafay laakiin caalamka hadda joogno maxay yaqaanaan maanta arbacanahay ilaa caawa laga gaaro 12 ama 6 saaco habeenimo ama 12 saaco habeenimo sidee dadba ugu tiriyaane waxay u yaqaaniin intaasa arbaca loo yaqaanaa habeenkii marka waxaa lagu leeyahay waxaan ballamaynaa habeenka arbacada saacadeeda halka saac mathalan todobadeeda labada mathalan sideedda waa khalad ilaahay habeenna gooni buu noogu sheegay nahaarna gooni buu noogu sheegay waxay ahayd in gooni loo kala xisaabo khulaasat lqowl waxaan u jeednaa habeenka maalinta way ka hormaraysaa wa calayhi maalinta ay bisha 20 ay tahay ramadaan qoraxdeeda hadday dhacdo habeenkii 21 bilaabantay tobankii dambaa bilaabmay markaa hadda bisheena mathalan ramadaankan hadda wuxuu dhashay jumca 3 jumca 15 sabti axad isniin talaada arbaca 20 weeyaan 20ka maalinka oo arbacada oo 20ka ay tahay qoraxdeeda hadday dhacdo
habeenkeeda ku xigo waxa weeyaan waxaa la bilaabayaa tobankii dambe waa gashay habeenkaas axkaamteedii dadaalkeedii gooniga ahay baa la rabaa in lala bilaabo saa ula soco ayib waa taa bilowgii waaye alcashru alawaakhir marka lagu leeyahay aqlabiya waa laga yaabaa inay noqoto 10 maalmood waxay noqon kartaa 9 maalmood bisha marna 30 ay ku dhammaataa marna 9 hadday 9 ku dhammaato 10 ma ahane waxay noqotay 9 maalmood intana waa isku wada mid weeyaan sababu اlijtihaadi fi hadi alcashri alawaakhir maxay tahay marka waxay tahay in wax laga bedelo waxaanu niriyey markii hore qofka muslimka jadwal inuu samaysto ramadaanka hadda ramadaankii jadwalkii aad ku socotay 20 maalmood oo hore waa inaad bedeshaa jadwal dambo oo 10 ku aadan lianna way ka qiimo bantahay intii kale jadwalka waa in la laba laabaa markaan kaasaa lagaa doonayaa jadwal oo u gaara inaad samaysatid liannahu fadligeeda aad u dheeraade fadliga waxay u dheeraatay waxa weeyaan 3 midkood marka ugu horeyso 10kan dambo leylatulqadri baa ku dhex jiro oo ninkuu ilaahay waafaqiyo guul oo dhan ilaahay uu siiyey od aan ka sheekay doona habeen baan u gaaryeeli doonaa waa midda kale kulligeen ramadaankii waa soo galnay nin kasta ishaa iyo gadaal u milacsana wuxuu dareemayaa sidii laga rabay ramadaankii inuusan u dadaalin marka waxaa laleeyahay alcibratu bilkhawaatiim inta dambaysa aada u dadaal waxaan rabnaa gaabintii aan gaabinay inaan wax ka bedelno oo markaa aan xoogga saarno 10kaa dambo sidii aan maxaan ku iraahdaa naqsigii hore aan ku dhacnay aan u kabno waa mas'ala oo muhim jiddan waay midda saddexaad alcibratu bilkhawaatiim maadaama ramadaan uu dhammaanayo qofka dhammaashada wax kasta waa lagu dadaalaa cumrigaada markuu aakhirka yahay markuu awliyaa isku mid ma ah waalcaaqibatu lilmuttaqiin haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu khatimo ramadaan wax fiican waad guulaysatay marka adoo ku dadaalaysad in ramadaan wax wanaagsan aad ku khatimtid yaad dadaalaysaa arrintaasaa keenta ayib midda ugu muhiimsan iqtidaa'an birasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam nebiga yaa lagu dayanaya nebiga waxaanu ognahay 10 asoo wada dadaalaya ramadaan oo dhan iyo dadaalkiisa labalaabi jiray 10ka dambo caaisha waxay tiri radia allahu canha idaa dakhala alcashru alawaakhiru axya laylahu wa ayqada ahlahu washadda mi'sarahu يعني عائشة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأحواله في الليالي لأنه إلى جيفتا نبي هابينك وحو سمعنا قيام كيسا وحدنا إذا لوغو لابن جري marka waxay tiriyay nabiga caadadiisa awlahay waxay kamid ahayd 10ka daba soo gasho habeenkii waa nooleyn jiray cibaadayo ku nooleyn jiray ku noori jiray wa ayqada ahlahu ahalkiisana waa kici jiray oo waxa weeyaan inay ka faa'iideystaan xaaskii wixii oo nabigu u dhow oo dhan washadda mi'zarahu guntigana dhiishu isaga dhigi jiray marka shadda mi'zarahu يعني marna waxaa leeyahay xaasaskiisa iyo ladaadka uu ka tegi jiray nabigu waaba ictikaafi jiray nin ictikaafsan naagmaba jirtabo inuu u tago waa taa weeyaan midda kale shadda mi'zarahu cibaara can الاجتهاad والطاacة qofka markuu wax weyn inuu qabto uu rabo si fiican buu go-a u xirtaa dadkii markii hore go xiray jiray ama mucaawista waxa weeyaan si xoogla uu xiranaya lianna wuxuu u socdaa wax adag ah marka kinaayad can الاجتهاad inay tahayna waa dhici karta marka sidaas haddii ay tahay qofkii waa inuu diyaar garooba diyaar garoob maxay u imaan kartaa horta naftaada nooca maalintaas xoogaa raaxo qaado habeenkaas qofka waxaa la ogyahay naftiisa intay ay la eg tahay raaxadeeda buu cibaadadiisana u dhadhansanaya habeenka haddaad usoo qabaysatid dhar fiican aad soo guntatid aad diib soo marsatid waxa weye nafsiyaadkaadoo dhan waxay noqonaysaa farxad iyo qalbi qabow yaad ka helaysaa sababtana waxa weeyaan ilaahay baaba na amray oo khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin waxa weeyaan
markii aad dukanayso masaajid aadaysid oo dhan inaad waxa kugu wanaagsan aad qaadatid ziinada qabayskaa soo galay dhar qurxanood qaadatid inaad barfuunkaada aad marsatid kullu daalika waad samaynaysaa dharka kugu wanaagsan aad qaadanaysaa waxa weeyaan waa la ogyahay qofka markuu sidaa u raaxaysan yahay cibaadadii tadaburkeeda dadka kale waa kaga fiican yahay waa mid ma keenaysa markaan leenahay axyaa leylahu wa ayqada ahlahu habeenkii o dhan ina soo jeedid ma ah min hadyi sala allahu calayhi wasalam sida ee nabiga ka soo aroortay xadiidkii saxiixeynkana aan soo marnay uu ninkii yiri ani habeenka dhan waa soo jeeda ou nabiga yiri ani habeenkii waana hurdaa waana soo jeedaya mar caaishana waxay tiriyey radia allahu canha laa aclamu rasuula allahi qara'a alqur'aana fii leylati walaa qaama leylahu xataa asbaxa ma an arkin bay tiri nebigu habeenkii o dhan qiyaam ku dhammeey ma arkin habeenkii oo dhan qur-aanka asoo hal mar dhammayna ma arkin bay tiri bil aan ramadaan aanayno soonkuma dhammaystirin marka hadyiga nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa weeyaan inaad saacaad min alleyl oo yar inaad naftaada hurdo yar aad qaadatid raaxadaas waxay maslaxo u tahay cibaado dambe oo aad samaynayso yacni dad salafka waa jira habeenankaa 10ka dambo iska soo jeeday ayagoo dadaal ula jeedo waxaan leenahay way fiican yihiin anaga hadda waxaan leenahay in la soo jeedo xaaraan batan waa ma dhahin laakiin waxaa fiican midii nebiga kasii fiican ayagana way fiican yihiin nebiga tiisa yaa kasii fiican inaad xoogaa raaxo aad qaadatid waxay gaartaba ha gaarto waxaa habeenkaa loo baahan yahay si aad uga faa'iidaysatid waqtiga ha iska dayacin waxaa khasaaro ah habeenkaa dambe waxaa laleeyahy ciidiyaa soo dhowe 10kan dambe habeen kasta aan suuqa aadno ilmihii dharkii aan usoo gadno way fiican tahay ilmaha in la hagaajiyo laakiin habeenakii faadilka ahaa suuqii oo cariiri ah caaw waxbaa naga dhiman habeen dambaan ku laabanayna habeenka dambaan ku laabanay ninkii suuqa tagay oo ilaa 12 ku soo maqnaay markuu yimaado soo daalan buu imaana muxuu ba cibaadaystaabo marka waqtigaada ka faa'iidayso faraaq samayso midda kale jadwal u sameey oo aad kaga faa'iidaysatid sidii aysan kaaga dayacmin jadwalkii hore jadwal ka duwan waxaa 10kan dambe kugu habboon inaad ku dadaashid salawaadkii inaad masaajidka aad ku jirto aad ku dukatid jamaacaad liannahu waxaan ku leeyahay ninka haddii cishihii iyo maqhribkii ou masjidka jamaaca kula dukada kumaba sii jirta safka hor haddaad ku sii dukatid had salaadii subxeedna ku dukatid khayr oo dhan waa ilaahay gacanta buu kuu geliyay intiid ku dari kartid waa wax wanaagsan laakiin intaas horta asaasan u qaado ha ka degin dadka mu'miniinta waxaa lagu magacaabay rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaahi wa iqaami asalaa sidaas oo kale ilaahay wuxuu uri yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illaah yacni inay adduunyadii cunitaankii shaqadii inta qabsada inay salawaadkii jamaacadii kaa mashquulisa maaha waxaa habboon habeenkaas habeenaka qiimaha badanne sida ugu habboon saad uga faa'iidaysatid inaad iska ilaalisid macaasidii waxaa imaan karto yacni qofkii waxyaalaha hadda maanta teleefoonaadka ku dhex jira wax ka maqan maba jiraanbo fisqi oo dhan meeshasay ku jiraan musalsalaadkii habeenakii oo la fiirsanayo qanawaadka fadaa'iga habeenkii oo dhan oo jarada iyo jaadka iyo islacnada iyo dadkii la caaya iyo siyaasadii oo fadhi ku dirir iyo waxaasoo dhan cibaadadii way kaa baabi'inayaan ajirkeedii inaad iska ilaalisid oo aad ilaahay u godid qalbigaadana ilaahay aad u soo jeedisid faa'iido weyn bay kuu tahay sidaas oo kale maladaadka iska yaray waxa lagu raaxaysto iyadooba iska xalaal ay tahay yacni cunitaankii maxaan ku yidhaahdaa macnaha dalxiiskii meela aadkii aslan waa iska bannaan tahay laakiin looma joogo maanta waqtigeedii ma aha ka faa'iidayso waqtigaada iska yaray waxaa habboon ciddii aad taqaanid reerkaadii ha noqoto diriskaadii ha noqoto macaariftaadii ha noqoto ku baraaruji war caawa waxaa waye 10kii dambaa gashay ha laga faa'iidayso telefoon u dir haye maxaa kuu tale eh maxaad jadwal samaysatay ninkaa daacada uu samaynayo ilaahay ajir buu kugu qoray haddaad sabab u noqotid ilaahayna wuxuu iri waatan xadiidkii nebigu soo dhaafnay ayqada ahlahu nebiga ahalkiisa uu kicin jiray zawjaadkiisa ay ugu horeeyaan
waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha laa nas'aluka risqan naxnu narsuquka. waxaa nala amray ka mid tahay inaan ahalkeenna iyo caruurteenna iyo kulliba aan daacadii aan ugu yeerno. waxaa waye quu anfusakum waahliikum naaran, dadkaada inaad ka badbaadisid naar waa loo baahan yahay, waa muhim. waxaa muhim o inaad iska ilowda aadan ahayn habeenaka ramadaan sidii cibaadada ruuxiga aad u samaynaysid, cibaadada kale oo waxbixinta ah ku dadaal. waataan hore u soo sheegnay nabiga calayhi salaatu wasalaam kaana ajwad annaasi bilkhayr wa kaana ajwadu maa yakuunu fii ramadaan xiina yalqaahu jibriil wa kaana jibriil yalqaahu kula leylati min ramadaan xataa yansalikha. habeen kasta oo ramadaan kamida jibriil nabiga wuu la kulmi jiray, qur-aankuu la akhri jiray. nabiga marka shukran lilaahi calaa hada alkhayr oo jibriil la kulankeeda wuxuu haysto dhan wuxuu haysta wax buu ka bixin jiray. marka habeenaka ramadaanka habeen ay ka tahay ma ogid leylat lqadri. marka habeen kasta hadaad wax la bixi kartid, haddii tobanka dambe habeen kasta sadaqa aad la baxdid aad qaybsatid, habeen hadday ku aada sadaqadaadi leylat lqadri hadday isku aadaan halkii aad bixisay kumanaan joora lagu laablaabaya leylat lqadri. saa weeyaan. waxaana la iloobaynin habeenka oo ramadaanka tilaawat lqur'aan, qur'aanka inaad akhrisid. waxaa waye maadaama shahru lqur'aan aba la yidhaahda, qur'aanka soo degitaankiisa waxaa lagu bilaabay bisha ramadaan lixikmatin yaclamuha tabaaraka wa tacaala. marka bishan waa bishii qur'aanka baa la yidhahda, qur'aanka in la akhriyo, laakiin lagu akhriyo bitadabur waliticaad. aayaadkii macaanideedii ay sheegaysay inaad dhuuxdid baa loo baahan yahay. dad badana waxay samaynayaan wax badan bay jad ahaan u dhiganayaan. maalan 6 juz caawa inaan akhriyo haddaan iraahdo, naftaydii waxay ku xiran tahay markaan akhrinaabo imisaa ii dhiman, imisaa ii dhiman, imisaan soo dhameey. waxay kaa mancinaysaa tadaburkii iyo fahmigay kaa mancinay. waxaa ka wanaagsan wax yar oo qur-aan kamid 2 juz 3 juz waxaad akhri kartid oo maalintii habeentii aad qaybsatid, oo markaad akhrinaysid ay asaas kuu noqoto aayaddii macnaheedii inaad adiga iskula hadashid. waxaa la yidhahdaa qur-aanka waa risaale ilaahay uu soo diray, dadka u soo diray, dadka o dhan adiga marka adigana gooniba idoo lagu soo diray ula dhaqan. sidaasaa la doonaya. midda kale oo aan raba dadka inaan xasuusiyo waxa weeyaan inaad ducadii alla barigi adkaartii inaad qayb soo geliso habeenakaas oo qiimaha badanne. horey baan uga soo hadalnay sidii adkaarta u kala fadli badan tahay, mideeda midda ka qiimo badan tahay xooga saar. yacni cibaado mutanawic ah oo macnaha noocyaal badan leh habeenkaas geli. midda kale waxaad ogaataa oo muhim ah, leylat lqadri habeenkay qusaysaa, maalin ma qusayso. waata ilaahay uri xataa maطlac ilfajr. haddaaba fajarka la aadaamo leylat lqadri waxay soo gashaa maqribka qoraxda markay dhacdo, fajarka markuu baxane ou la aadaamana waxa weeyaan waa baxday. marka ninaa jira qur-aan u akrinaa, maalintii buu akrinaa 3 juz, habeenkii taraawiixdii waxaasoo ku gaaryeela. waxay ka dhigan tahay adoon leylatulqadri qur-aan aan akhrinin. marka daacaadka qayb badan ku aadi, habeenkaas ku aadi. markii 10ka dambe la gaaro waxa weeyaan habeenkii ku aadi daacaad badan, iyadoo habeen iyo maalin ay kala fadli badan yihiin cibaadaadka oo dhan, ilaa faraa'idta mid meesheeday ku fadli badan tahay, laakiin sunanta oo dhan habeenkii ay ku wanaagsan tahay. marka qofkii waa inuu dadaalaa. ictikaafkiyaa ka mid 10ka dambe ninkii ictikaafi karo, ictikaafkana waan ka sheekay doonaa. wallahu aclam.